Dekeddu waa mid fac weyn oo la aasaasay 7 May 1989. Waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo u dhow afka webiga Elbe. Waxay ahayd deked weyn oo bartamaha Yurub qarniyo badan. Waxay u suurto gelisay magaalada Hamburg in ay noqoto mid horumarkeedu uu sarreeyo, oo ay weliba ka dhashaan dad ganacsato caan ah oo maalqabeeno ah. Waxay ahayd oo kale xudunta ganacsiga markii la helay Ameerikada Fog. Waxay kaloo dhaaftay dhammaan dekedihii Jarmalka intii lagu guda jiray qarnigii 19aad. Haddaba dekedani waxa ay u horseeday amaba ay sabab u noqotay magaalada Hamburg inay noqoto magaalo aad u ballaaran oo mujtamac badani ay ku nool yihiin, noqotona magaalada labaad ee ugu weyn dalka Jarmalka. Dekedan ayaa waxa kale oo ay istiraatiijiyad qoto dheer la lahayd isu socodka iyo gaadiidka maraakiibta ka yimaada qaaradda Ameerika.